xishoodku waa shay aad u wanaagsan. qofka xishoodka badanna waxa uu ka dhex muuqdaa dadka kale. haddaba muuqaalkan waxaad kaga bogan doontaan muuqaal aan aad ula yaabay oo aan ku dhex arkay baraha xiriirka bulshada. waa gabar samaynaysa waxyaabo ay gabdhaha aad uga yaxyaxaan ama ay aad uga xishoodaan. haddaba muuqaalkan hadduu ku soo gaaro waxaan kaa codsanaynaa inaad like saarto muuqaalka lana wadaagto asxaabtaada. mahadsanid. gabadhan aad u jeedaan waa gabar dhalinyaro ah. waxay bulshada la wadaagaysaa waxyaabo aad looga xishoodo. waxay kaloo bulshada la wadaagaysaa waxyaabo ay aad uga xishoodaan gabdhaha inay ogaadaan ama ay u sheegaan waalidkooda, walaalahooda iyo asxaabtoodaba. ayadana waxay arrinkan ka dhigatay wax iska caadi ah oo iska faniya ay bulshada la wadaagayso. السلام عليكم. halkan waa Somali Home. maanta waxaan iska dhigi doonaa gabar caadada ku dhacday ayadoo joogto bartamaha suuqa. bal ila daawada shacabka si ila dhaqmay doona. ayadana waxay u dhaqmaysaa in shaygan uu caadi iska yahay. haddaba waxay si shaarica u sheegaysaa inuu ku dhacay dhiigii caadada ahaa. ayada ma xishoonayso oo waxayba u haysataa inay samaynayso wax iska fani ah, laakiin ma oga in xadkii ay ka baxday oo ay sheegayso waxyaabo dhibaato u horseedi kara sharafteeda iyo mustaqbalkeeda. gabadhan markaad fiirisid indhaheeda waxaad ka fahmaysaa inay aad ugu faraxsan tahay waxyaabahan ay sheegayso. wiil ayay la kulantay. waxay iska dhigaysaa inay waxaan si keys ah ugu yimid oo aysan ahayn wax ay kas u samaysay. wiilkii aad ayuu u yaaban yahay. waxauna u sheegayaa in waxaanay ceeb yihiin. sidoo kale wuxuu u sheegayaa inay ceeb u horseedayso gabdhaha Soomaaliyeed. firiyada maxaa ku dhacay? dhiiga socda. dhawarka ay xanuunaa maxaa dhacday? dhiiga ku socda. ana dhiiga ku socda. badasha. ma arkeenin. maxaa waay? وملايين يقولوا انت انسان عاوز يقصعدون ومو براد صومالي ولا يبيسن قبل صومالي كعبينا ما حكى خدنا دي وحن عاد صوموه ما عاوز جيتونغا كوني ما خف صومح له سكر كان wiilka aad ayuu u amakaagsan yahay. sidoo kale bulshadan aadka u fara badan dhexdooda ay xishood la'aan la soo gashay. subxaanallah, diintu waxay tiri xishoodku waa iimaanka barkii. haddaba muuqaalkan waxa uu banaanka keenayaa heerka dumarka qaarkood xishood la'aantoodu gaarsiisan tahay. haddaba gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa inay xishoodka ku dadaalaan oo risqiga ay raadinayaan ay u raadiyaan qaab ku habboon oo lagu raadsan karo risqi xalaal ah adigoo aan sharaftaada, diintaada iyo dhaqankaagaba wax u dhimayn. daawade, haddaba inta aad sharta madax u noqon lahayd khayrka majo u noqo. intaas ayaan muuqaalkeena kusoo gabagabayn doonaa. haddii aad dhamaysatay muuqaalka like saar lana wadaag asxaabtaada. mahadsanid.